waa 20kii bishii 8aad 2009. waxa uu bariyay subax qurux badan. jawigu aad ayuu u degan yahay, maalmihii horena wuu ka duwan yahay. Osaka waxay u xirxiran yihiin safar dhinaca badda ah. waa Bruno Belisari iyo xaaskiisa Dibay Coletes. waxaa hadda ka koray carruurtoodii oo waxay gaareen isku filnaansho. iyaguna waxay go'aansadeen inay noloshooda dib u cusboonaysiiyaan oo ay dib u bacramiyaan jacaylkooda, iyagoo waqtigooda ku qaadanaya labadooda oo isu keli ah si ay u wada xasuustaan waqtiyadoodii wacnaa. waxay ka soo shiraacanayaan waddankoodii Koonfur Afrika, waxayna gelayaan safar ujeedkiisu yahay dalxiis iyo tamashlayn. safarkoodu wuxuu ku jihaysan yahay Mozambique, kadibna caasimadda Tansaaniya ee Dar es Salaam, wuxuuna ku egyahay waddanka Hindiya. waxaa soo sogootiyey carruurtoodii iyo ehelkii intii ay ugu dhoweyd, waxaana u bilaabmay safarkii ay ku riyoonayeen. haddii ay 2 maalmood sii socdeen, waxaa ka go'ay sahaydii ay ugu talagaleen safarka, waxayna ku leexdeen oo ay ku degeen goob lagu magacaabo Songa oo ku taal Tansaaniya. way ka degeen doontii, waxayna raadsadeen waxyaabihii ay u baahnaayeen. 1 saac kadib ayay soo laabteen, laakiin waxay la kulmeen lama filaan. intii ay maqnaayeen waxaa loo soo dabamaray doontii, waxaana laga xaday lacagtii ay wateen. jahwareer kadib waxay go'aansadeen inay aadaan caasimadda Dar es Salaam si ay halkaas uga shaqaystaan lacagtii ay ku sii dhammaystiri lahaayeen safarkooda. markii ay gaareen Dar es Salaam, sidii ay malaynayeen wax uma dhicin oo waxa ku adkaatay inay shaqo helaan. laakiin bil kadib Bruno ayaa shaqo helay, inkastoo aysan ku filnayn lacagta ay uga baahan yihiin safarkooda. maalin iyagoo iska fadhiya doontooda korkeeda, xisaabinayana intii yareed ay soo shaqeeyeen, ayaa waxa uu yimi nin lagu magacaabo Peter. waa askari hore oo ka tirsanaa ciidanka Koonfur Afrika, haddase waa howlgab, wuxuuna ka shaqeeyaa Dar es Salaam. Peter wuxuu u baahnaa inuu dib ugu laabto waddankii Koonfur Afrika, wuxuuna u soo bandhigay lamaanahan inay dib ugu laabtaan dalkii, isagoo siin doona lacag gaaraysa $2,000 si ay hodhow safarkooda ugu soo bilaabaan. wayna aqbaleen. waxay dib u saareen shiraacii, laakiin inta aysan bixin waxaa arkeen nin wata saxiimad ay ku qoran tahay Al-Fakir oo si fiican u fiirinaya, laakiin wax dareen ah kama qaadin. waxayna bilaabeen safarkooda ay dib ugu laabanayaan dalkoodii. waxay sii socdeen 3 maalmood. waxay iska mushaaxayeen badda, waxay madadaalo u daawanayeen kalluunka ag maraya doonta, oo isna sidii inuu madadaalinayo u boodboodaya. iyagoo jawigaas ku jira ayaa hal mar waxaa soo muuqday saxiimado dheeraynaya, garta inay yihiin burcadbadeedii Soomaalida. waxay isku dayeen inay cararaan oo doonta xoog u kaxeeyaan, laakiin uma suurtoobin oo waa la qabtay. wiil ay da'diisu ku qiyaaseen 17 jir ayaa ku yidhi, keena moobiladiina iyo lacagtii, isaga ayaana ka qaaday. markii la qabtay ayaa waxay arkeen ninkii watay saxiimadda Al-Fakir ee ay horey ugu soo arkeen Dar es Salaam. markaas ayayna fahmeen qofka xogtooda soo gudbiyey inuu isaga ahaa. waxaa u bilaabmay riyo xun oo aanay filayn. waxaa doontii afkeeda loo soo aadiyey dhinaca Soomaaliya. intii ay soo socdeen waxay dhowr jeer weerareen doonyo iyo maraakiib ay ku weerareen doontoodii. kadib waxaa soo muuqatay doon dagaal, waxaana ka soo kacay diyaarad helikobtar ah. burcadii waxay ku amreen inay istaagaan dadkii u afduubnaa, iyaguna waxay ku dhunteen gadaashooda. kadibna waxay ku bilaabeen xabado aan qiyaas ku socon, laakiin ay iska tuurtuurayaan. diyaaraddii iyadoo aan waxba gaarin ayay laabatay, laakiin in yaroo farxad ah baa gashay reerkii soo qafaashay haddii ay cidi ogaatay inay galeen gacanta burcadbadeeda. waxay soo gaareen caarida xeebta Soomaaliya. waxay burcadbadeedii ku amartay inay biyaha isku tuuraan, laakiin Peter waa diiday, wuxuuna gudaha u galay doontii. inta aysan biyaha ku dhicin, waxay maqleen 3 xabadood oo ka dhacay meeshii uu Peter ku jiray. markaas ayaana araggiisa ugu dambaysay. kadib waxay geeyeen beriga
waxaa mar kale soo muuqatay helikobtarkii waxayna ku amreen inay dhuuntaan. hase ahaatee waxay soo istaagtay oogadooda wayna laabatay. waxaa lagu khasbay socod ay ku lugeynayaan meel saxaro ah. habeenkii labaad ayay ku soo dhaceen waddo waxaana ugu diyaarsanaa gaari. waa la saaray intii indhaha laga xiray. waxay geeyeen meel u diyaarsanayd. waxaa lagu xiray qol waxayna u keeneen firaash uraya dhiigna uu ku yaal. way ku seexdeen maadaama ay aad u daalanayeen. waxay ahayd habeenkii koowaad ee noloshan adag ay u bilaamatay. qol mugdi ah, nadaafadiisu hoosayso, cunno xumo. waxaa isku qaban waayey riyaday ku soo baxeen iyo midda dhabta ah ee ay ku jiraan. subaxii ayay u yimaadeen iyagoo weydiinaya nambarada ehelkooda. waxayna u sheegeen inay ka rabaan lacag gaaraysa $20 milyan. way la yaabeen. waxayna u sheegeen inaysan lacagtaas awoodin, laakiin waxay ku dhaheen dowladdiina ayaa bixinaysa. maalinta ka dambaysa awoodooda way sii yaraanaysay, caafimaadkooduna wuu sii xumaanayay. hase ahaatee wakhtigu wuu wareegay. habeen ayay u yimaadeen, indhaha ayay ka xireen, kadibna gaari ayay saareen. waxay geeyeen meel kale, indhaha ayay ka fureen. waxayna ku dhaheen dowladdiinu waa diiday inay lacagtii bixiso. waxaana doonaynaa inaad tusaale u noqotaan caalamka kale ee aan idin dilno ee iska saara kana hordilayno. way isku qabsadeen labadoodu, anaa hormaraya iyo anaa hormaraya. kadib iyagu waxay doorteen Bruno. way kaxeeyeen meel ayay fariisiyeen, kadibna shidaal ayay ku shubeen. waxayna meel u dhow dhigeen dab. waxay u dhiibeen taleefon waxayna ku dhaheen la hadal walaasha oo u sheeg inaan idin dilayno haddaysan bixin lacagta aan rabno. Bruno isna sidii buu yidhi. kadibna way soo celiyeen waxayna dib ugu celiyeen meeshoodii hore. wuxuu wakhtigu wareegaba 20 bilood kadib goor habeennimaha ayay soo saareen. waxaa la saaray gaari uu wato nin si fiican u yaqaan Ingiriiska. wuxuuna ku yidhi xor ayaa tihiin, dowladdiina ayaa lacagtii bixisay. kadibna wuxuu geeyey caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. halkaas ayaana diyaarad laga saaray oo ay dib ugu laabteen dalkoodii. gadaal ayay ka ogaadeen inay lacagta bixisay dowladda Talyaaniga oo uu Bruno ka haysto dhalasho, laakiin Talyaanigu iyagu wax faahfaahin ah kama bixin.